kulan wacan daawadayaal halkan waa janaalka isha wararka TV waana 4 bisha November sanadka 2020 qodobada warka janaalka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah halkee kala maraysa natiijada doorashada dalka Mareykanka Ethiopia oo xaalad adag gashay gaar ahaan gobolka Tigreega sidoo kale warkeena waxaad ku daawan doontaan doorasho maanta ka qabsoontay Hirshabelle Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay iyo dowladda Soomaaliya oo warka soo saartay doorashadaasi waa idin soo gudbin doonaa sidoo kalena waxaad daawan doontaan siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo boorar uu ku muujinayo musharaxnimadiisa laga fujiyay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya iyo arinkaas oo isagu uu ka hadlay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka janaalka isha wararka TV fadlan haddii aanagu cusubtaan nagu soo biro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararka 24 gasda canaalkan ku baahina aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka sheergareeya laagtiin waa inoo muhiim daawadayaal haatanna ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan ugu horeynta aanu ka hormarnay arrimaha la xiriira doorashada ka socota dalka Mareykanka oo meel xasaasi ah maraysa ayaa ilaa iyo haatan waxaan la saadaalin karin cidda sida rasmiga ugu guuleysan karta madaxweynaha dalka Mareykanka dadka ayaa si weyn indha ugu haya warbaahinta oo lagu soo gudbinayo natiijada la xiriirta doorashada oo weli tira ahaan ee labada musharax ee Trump iyo Joe Biden ba si aad ah isku dhow yihiin inkastoo Biden uu hogaaminayo haddana lama saadaalin karo oo waxa la sheegayaa in wax waliba isbedeli karaan Trump ayaana si weyn warbaahinta caalamka u isticmaanta oo siyaabooyin kala duwan arinkan ugu hadlayay isagoona marmarka qaar muujinaya niyad xumo ku aadan in laga guuleystay sidoo kalena ka dhawaajinaya musuqmaasuq uu jiro inkastoo maalinta Britaaw oo Khamiis ah la shaaci doono natiijada rasmiga ee doorashada labadan musharax ayaa haddana waxaa la sheegayaa in laga yaabo in labada musharax isku natiijo ay keenaan haddaba maxaa dhacaya haddii uusan midna guuleysan labada dhinac xubnaha aqalka wakiilada ayaa dooran doona madaxweynaha ergeda gobol kasta oo aqalka wakiiladana waxa ay yeelan doonaan hal cod aqalka sanadka ayaana isaguna dooran doona madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka si kastaba warbaahinta Ruushka ayaa iyaduna si aad uga hadlayso doorashada ka socota dalka Mareykanka warbaahinta Ruushka ayaa mar ee arinkan ka hadlayeen waxa ay sheegeen in Trump uu ku jiro dagaal la mid ah kii Nabi Daawud oo la galay Jaaluud oo ah xaalad cabsi leh waxayna warbaahinta Ruushka si weyn u hadalhayaan walwalka haysta madaxweyne Trump haddaba daawadayaal waa la socon doontaan wixii ku soo kordha arrimaha doorashooyinka dalka Mareykanka iminka Ethiopia markaanu eegnana xaalad adag ayuu dalkaasi lugaha la sii galaya gobolka Tigreega gaar ahaan ayaa la sheegayaa in xaalad degdeg ah lagu soo rogay oo muddo 6 bilood cabsi xoogan ayaa ka taagan meelaha qaar dhawqa rasaasta ayaa la sheegayaa in laga maqlayo inkastoo gabi ahaanba internetka iyo isgaarsiinta hawada laga saaray gobolkaasi tani ayaa timid markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ka dhawaajiyay in la soo weeraray ciidamada militariga federaalka isla markaasna kuwa gobolka Tigreega isku dayeen inay bilaqeystaan hubka culus ee gobolkaasi militariga u yaala waxaana Abiy uu waqtigaasi ciidanka federaalka Ethiopia ku amray inay iska difaacaan weerarba oo uga yimaada dhanka ciidanka gobolka Tigreega hase yeeshee tani ayaa la sheegayaa inay horseedi karto Ethiopia ay kala goodo arrimaha gudaha Soomaaliya markaan u soo laabanana doorasho ayaa maanta ka qabsoontay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle guddoonka baarlamaanka Hirshabelle ayaana lagu doortay doorashadan oo maanta ka qabsoontay magaalada Jowhar ayaa waxa ku tartamaya musharaxiin u kala taagnaa xilalka gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo ku-xigeenkiisa labaad Cabdixakiin Luqmaan ayaa helay codad gaaraya 77 cod halka xildhibaan Goodir oo la tartamay oo helay 22 cod waxaana xumaaday hal cod sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka sidaasna waxa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ee labaad ku noqday Cabdixakiin Luqmaan doorashada guddoonka baarlamaanka oo lagu balansanaa inay qabsoonto galabta ayaa saaka loo hormariyay inkastoo waqti dambe oo galabta ay soo gaartay Cabdixakiin Luqmaan Xaaji ayaana ka tirsanaa safaaradda Soomaaliya ee Suudaan waxa uuna aad ugu dhawaa madaxda Villa Soomaaliya oo taageero weyn uu ka helay xildhibaan Siraaji Sheekh Isaaq ayaa isna loo doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle kadib markii uu tanaasulay xildhibaankii la tartamayay ee Saadiq Salaad Warsame xildhibaan Siraaji ayaana si gacan taaga loogu codeeyay waxa uuna sidaasi ku noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle
guddiga ayaana wakhtigaasi guda galeen doorashada gudoomiye ku-xigeenka labaad oo ay ku tartamayeen xildhibaanad canab axmed cilmi oo horey u haysay xeelkaasi iyo sidoo kale xildhibaan mahad xasan cusmaan oo isaguna ka tirsanaa baarlamankii hore hirshabelle haddana kusoo laabtay baarlamanka labaad. dhan kale xildhibaan mahad xasan cusmaan ayaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka hirshabelle kadib tartan dhexmaray isaga iyo marwe canab axmed ciise oo xilkan hore u haysay. mahad xasan cusmaan ayaana helay codod gaarayay 87 halka xildhibaanad canabna ee heshay codod gaaraya 12 cod. sidaasna mahad xasan cusmaan ayaa loogu doortay xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka hirshabelle. shakhsigan loo doortay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka hirshabelle ayaa horey usoo qabtay xilka wasaaradda warfaafinta hirshabelle xukuumadii madaxweyne cosoble. dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed oo maanta tegay magaalada jowhar ayaa isaguna ka hadlay arrimaha doorashooyinka hirshabelle. sheekh shariif ayaa waxa uu ka digay in qalalaaso iyo dhibaato loo horseedo hirshabelle waxa uuna sheegay in loo baahan yahay dib heshiisiin laga gaaro xaalada ka taagan doorashooyinka hirshabelle. sheekh shariif sheekh axmed oo ay la socdeen odayaal iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa tegay magaalada jowhar waxa uu isku dayayaa inuu xaliyo tabashada ugu weyn ee ka taagan kursiga madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo ay isku haystaan labada beelood ee ugu waaweyn dowlad goboleedkaasi. waxaana sheekh shariif uu haatan ku hoolan yahay xalinta arrinkaasi inkastoo aan la ogeyn halka ay arrinkaasi kusoo dhammaan doonto. cali guudlaawe ayaa garab taagnaa sheekh shariif waa madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle haatan u sharaxan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle waa shakhsiga sida aadka ugu cadcad inuu ku guuleysan karo xilkaasi. cali guudlaawe ayaana la sheegaya inuu ka socdo dhanka dowladda federaalk soomaaliya inkastoo reer hiiraan ay qabaan tabasho ku aadan inay iyagu xaq u leeyihiin kursiga madaxweynaha oo keliya laakiin lama oga halka ay wax ku dhammaan doonaan. dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ee soo saartay kusoo dhaweysay doorashadii ka dhacday dowlad goboleedka hirshabelle aad bay u bogaadisay guddoonka loo doortay hirshabelle waxayna ku baaqday sidoo kalena in guddoonka la doortay ay iminka u tabaabushaystaan doorashada la xiriirta madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle. qaybihii dambe ayaanu isla imaanay daawadayaal ee wararka iyo isha wararka TV hase yeeshee iminkaanu eegna siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa boorar uu ku muujinaya musharaxnimadiisa uu ku dhegnaa agagaarka madaxtooyada Soomaaliya la sheegay in laga fujiyey. siyaasiga ayaa war uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in boorarkii isaga uu ku muujinayo musharaxnimadiisa ay ciidanka koofiya casta ee ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya fujiyeen. shirkadii dhajinaysa boorarkaas ayuu sheegay in lagu wargeliyay in amarkan uu ka yimid madaxtooyada Soomaaliya. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana arrinkan si weyn ugu dhaliilay madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin lama oga waxa ka run ah arrinkaasi iyo waliba sababta rasmiga ah ee ka dambeysa. inkastoo siyaasigan uu yahay mid si weyn u dhaliila dowladda federaalk Soomaaliya haatan uu doonayo in uu tartan u galo xilka madaxweynaha federaalk Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal waa nageynta warkii aad kala socoteen janalka isha wararka TV fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada ee wararka 24 saacan halkan ku baahino aragtidiina halka hoose noogu reebo muuqaalka share gareeya laakiin waa inoo muhiim daawadayaal waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen isha wararka TV.